وأنيقو مستر عرورات waxaan la hadlayaa waxaan leeyahay galab wanaagsan maalin wanaagsan maanta waa maalin axad ah runtii waa fasax waxbarasho ma leh shaqo ma leh waxba ma leh marka baadiyaha ayaan iska soo aadaa maanta kale sidaas oo kale hore waxaan u soo qaataa buug ka hadlaya maxaan ku yiraahdaa baadiyaha ka hadlaya wad u jeedaan waa baadiye marka buugaan oo kale markii aad joogtid meelahan oo kale oo aad akhrinaysid dabcan oo aad ku nooshahay meel isla meesha buug ka hadlayo kala baadiyo kala ah xayawaanka iyo kala adarkaysid waa wax aad u weyn runtii oo qofka u fiican hadii aad jaanis u heshid jaanis kale dadka dhan way hayaan maanta kale meel kasta joog maanta kale waa maalin fasax ah waa maalin maaragtay laga nastay wax kasta marka hadii jimco ku too jimcada fasaxaysatidna jimcada akhrin kartaa hadii ay sabti ama axad ku tahay oo fasaxaysatidna ayadana buug waad akhrisan kartaa banaankan oo soo bixi kartaa ma ogtahay noloshu waa tabcaysaa waa daalaysaa sababta waxa soo dhaw sameynaysid waxa weeye noloshaada mar aad qancisid oo aad ka haqabtirtid noloshaada bal maalin waxaad ogaataa noloshaada inay mustakafi gaarto inaad hanti kugu filan haystid bal si noloshaada ugu sheegtid inay haysato maanta nolol ku filan si aad ugu sheegtid iyo aad u dadaalaysaa balse marka ugu dambaysa oo waxa soo dhan ba hadaad samaysidba maalinka ugu dambeeyna nafta lagu weydiin doonaa oo naftaadii aad u shaqeynaysay oo lahayd aad maalin u qancisid ayadii laga soo raadinaa marka waa qasaaro Soomaa marka intaanaan marka taas aysan dhicin oo nolosha laga soo raadsan runtii noloshaadana mustakafi ka dhig oo noloshaada u shaqee tan waa qayb kamid ah noloshana u shaqeysid in micnaha abuuqa ka soo dhaxbaxdid ina imaadid maaragtay meel saan oo kale taa ilaa xabsi kuma jirtid waxaan malaynayaa fiidiyogan ma fiirsanayaan dadka xabsida ku jira oo aan maaragtay oo duruufo haystaan oo aan imaan karin meeshan laakiin adiga meeshan kale imow ku naso waqtigaaga qaado waqtigu dadka waxay u fakaraan dadka qaar waxay u fakaraan waqtigu inuu yahay waxaan ka dhamaanayn waqti yar oo kooban waay ina u fakartid maaha ina waliga joogaysid oo kale ina u fakartid maaha waa ina u fakartid ina joogaysid waqti yar ina joogaysid waa ina u fakartid waa in marka aad ku dhibaatoonin adduunkan aayar aad marka shaqaysid markii kala tan aad banaanka u soo baxdid hadda maqaayad hadaa fariisatid tusaale maxaa faa'iido kugu jirta inta maqaayad waa iska fadhina maanta oo dhan Soomaalidu waa arkaaniga waa maqaayadaha xataa waa laga nacam maxaa yeelay maalin kasta waji hal waji maalin kasta oo tagay maqaayadaha marka maqaayadaha tagnina please soo baxa oo durduurka imaada magaalooyinka yararka dega mafaan fiidiyowga la dheeraaday qorshaygu ma ahayn inaan inwaaniyo ma ahayn laakiin qorshaygu wuxuu ahaa inaan buugaana idin sheego meeshan baadiyaha inta runtii waxaan leeyahay maalinta idin wacanaato muuqaalkan muuqaal ku xige intaan ku kulmi doona fadlan YouTube channel-keena subscribe saara waan ku mahadsantihiin yes halkan ayaan maanta fiidiyowgan ka bilaabaynaa runtii halkan waa magaalada aan deganahay yes marka maanta magaalada aan deganahay ayuu ka imaanayaa fiidiyowga waa webiga kaliya dhowr webi ay leedahay magaalada aan deganahay laakiin midka ugu weyn waay webigan
runtii waa yaryahay marka aad u barbar dhigtid webiyaasha Soomaaliya ama webiyaasha meelaha kale aad ku aragtid sababta webigan u yaryahay waxay tahay laba arrimood sabab u ah number 1 meeshan uu ku yaal horta buuro male webigana wuxuu ka bilowdaa buurley horta webi meeshan buuro male marka koobaad midda labaadna waa jasiirad yar waay marka jasiirad buurana male sida wadeed marka biyo badan ma yeelan karto marka macaan ah marka si kastoo noqoto webigan yarka ah ka soo baxa meel badoona ku daraa marka halkaan ka bilaabnaa videoga maanta wuxuu ku saabsan yahay maalmaha fasaxa maxaad qaban kartaa markii aadan la joogin saaxiibada ama markii aadan shaqo hayn ee aad guriga ka maqan tahay dabcan aad meeshaan oo kale soo baxdid oo baadiyaha ah waxyaabaha baadiyaha ay macquul tahay inaad samaysid yaan videogeena ku soo qaadanaynaa bal meeshaan aan ku degano bal jaranjartan webiga xaqiisa aan aadno waa xilli gu'ah waa barwaaqo meel kasta cawskii baa yaal fardihii halkaas ka muuqdaan maanta I don't know inaad arkaysaan halkaas maanta daaqayaan fardihii yes wakuwas marka ifagyihiin awal meelahan ay joogi jireen farda aad iyo aad waa webigii oo sidii hore ka weyn xoogaa maxaa yeelay webiyaal kale ayaa ku soo dardarsamay webigan wuxuu ku dhamaan rabaa meel dhow inta ah waxaan malnayaa 50 kilomitir kadib uu baaba'ay doonaa halkaan ay xayawaanku ka galaa iyo dadkuba way galaan haday rabaan biyihiisa cabaan haday rabaan oo ku dhaqdaan faanta macnaha geedahaas iyo geedahan inta u dhaxaysa waa webiga jidkiisa waay hadii macnaha roob zaid ay da'aan fatahaad iyo wax saasa macnaha webigu intaanu ku dhaqaaqaya intaan asaga iska leh marka hadda laakiin intii loogu talagalo yarayd iyo hadda ku socdaa malaha boqol sano ka hor uu ku socon jiray xagga uu ku socon jiray Mareyna maxay yeelay asaga samaystay jidkan waa jid asagu samaystay geedihii ka baneeyay asaga macnaha marmar uu maartay wadankan oo dhan wada biyo noqdaan marmar hadda laakiin maadaama roobku yar yihiin waa qayb biyahan waxay ka imaadaan dhulka intooda badan biyo roob ma laakiin marka roobku socdo intaasum waad garanaysaan webi leen ma sheegayo meeshan dad baa ku lugeeyay miyaan ku lugeynaa anaguna kuma lugeyn karno ma fiirin karno meeshan waxa ka jira aan ku noqonna meeshan ka imaanay iyo jaranjarteeni yes jaranjar baa loo sameeyay dadka runtii waa tilaabo dheer fiican tahay meeshan macnaha adoon dareemin baad ka korsanaysaa ka korso allah magacaada ka korso waad ka korsanaysaa kursigaanaad iska fariisan halkaan waxaa ka baxay sax cawska ugu qaalisan cawsaska runtii waxaad moodaa faraha in laga qaaday aad moodaa cawskan magaciisa waxaa la yiraahdaa xalimo dheer sida aad horey u maqasheen iyo haddii hadda uu ku cusub yahayba iska bart waa xalimo dheer madaxiisa waxaa la yiraahdaa cawska madaxiisaan oo kale waxaa la yiraahdaa markuu weynaado hadda uu yar yahay waxaa la yiraahdaa birre oo ama waa ubixi ama waa mirihiisii waay marka caws fara badan ayaa halkan ka baxay runtii oo aad u qurux badan maanta videogeenan wuxuu daaran yahay mararka hadda maanta waa maalin axad ah iskuul ma leh shaqo ma leh waxba ma leh marka maanta kale waa la iska nastaa haddii maaragtay aad wax diyaarinaydiinna waqti baad u helaysaa maanta kale inaad wax diyaarisid sidaas kale waxaad waqti u helaysaa maanta kale inaad ku soo yara wareegtid baadiyaha iyo meelaha ku dhow iyo wax badan baa maanta kale la qabtaa iyo asxaabta shimbir baa inta ka kacday waxay meeshan ka sameynaysay inaan arko ama kaga istaagaa dhasha dhala meelaha u taal lama arki karo waqtigaan oo kale markii la soo gaaro oo waqtiga xayawaanka dhan ay dhalaan oo shimbiraha dhan way dhalaan waxa uu yaala kumahii iyo ciyaalkii marka maanta kale waxaad samayn kartaa
saaxiibada baad soo booqan kartaa waxaad soo booqan kartaa sidaas oo kale qaraabada wax badan aad maanta kala samayn kartaa marka aniga weli waan sii lugaynayaa runtii waxaan ku sii socdaa bartamaha meesha jungalka weli waxaan sii marayaa meel jidkaan ku imaaday runtii jid aad iyo aad u dheer buu ahaa weli waxaan u socdaa hortayda roob da'ay dhulku waa iska qurux badan yahay waa caws meel kasta cawskan ugaar ma ogiye xoolo daaqama leh oo xooluhu waxraysan yihiin marka xoolaha waxay ku jiraan meelo sharma ah oo loo sameeyay ama meelo maarta beer xiran oo loo sameeyay marka marka waa un la sheekaysa geedaha dabaysha iyo shimbiraha heestooda shimbirayo heesta ma maqli jirta shimbiraha heestooda baad maarta la sheekaysanaysaa nabad barwaaqo baadiyahaas aan marayo anigu waddanka uma dhalan runtii Soomaali baan ahay Soomaaliyaan ka imaaday qofka waddanka u dhashay markaan iska soo horbaxno waxay ahayd inaan anigu cabsaday ahaydoo aan yiraahdo qofkan maxaad kala kulmi doontaa laakiin sida runta dadka waddanka u dhashay baa markay arkaan qof macnaha way ka cabsadaan kama baqayaan macnaha inay awood yar yihiin kama baqayaan awoodooda inay yar tahay camal inay shar lahayn waxaasoo dhan maaha inay uga baqayaan kaliya waxay uga baqayaan waxay tahay qofka xuduudiisa ma ka soo gudbaa kaliya macnaha waxay ka cabsanayaan waxay tahay inaad xuduudaada ka soo gudubtid kama cabsanayaan inaad ka xoog weyntahay ka cabsan maayaan ayagu maadaama sharciga ay garanayaan iyo consequenceska waxyaabaha ka dhalan kara haddii qofku ka gudbo xuduudiisa marka waxay isleeyihiin qofkan soo socda waddanka u dhalan midabkiisa aad garanaysid inuu waddanka u dhalan war amuu xuduudaada u soo gudbaa amuu kugu xadgudbaa ereygaasay Soomaalidu garanaysaa moogta way isleeyihiin marka way baqayaan ayagoo cabsanaya jidka iyo ku garab marayaan hadday rabaan inay ku dhaafaan ayagoo sidaas oo kale ayagoo ka cabsanaya ku dhaafayaan marka ayagoo waxay isleeyihiin qofka xuduudda amuu ka soo gudbaa bay isleeyihiin maahane xoog kuma yara xoog waa leeyihiin waa dad waddankoodii jooga marka way shar hadday rabaan shar badan bay samayn karaan hadday shar rabaan laakiin dad shar raba ma waxay ka cararayaan sharti ka cararayaan macnaha sharta waxa sharta la yiraahdo macnaha inay wax dhacaan ay ka cararayaan moogta iyagoo hadday rabaan way samayn karaan waxay rabaan waddankoodii joogaan dadkoodii qaraabadoodii milyan qof ayagoo ah marka iyaga ma aha mushkiladu ma aha inaysan garanayn waxay samayn karaan mushkiladu waxay tahay iyagu ma rabaan in wax dhacaan waxay doontaa haato ma rabaan taasaa keenaysa marka inay u muuqdaan dad cabsanaya dad waxaan arkay iska dhaadhiciyay dadkan inay cabsanayaan oo leh war way cabsadaane wax ka fulaysan ma leh dadka caddaanka way cabsadaan ma cabsadaan dadka caddaanka sida ay uga horeeyaan ummadaha ama ay u sameeyeen maaragtay cilmiga ay u horumariyeen diyaaradaha markabada maaragtay baabuurta hubka dhismooyinka nabadda cilmiga wax baarista wax ogaanshaha wax sheegidda waxaasoo dhan jid kala dhinacaan aaday min inta marka waxaasoo dhan ay dadka macnaha waxaasoo dhan ay awood u yeesheen sidaas aawadeed inay dhibaatay macnaha dad baqa maaha marka waxaad fiirinaysaa waxay sameeyeen baad ogaanaysaa moogta waan sii soconaynaa weli halkan waxaan ku lugeeyey 3 isbuuc ka hor malaha maya 3 isbuuc oo isku xigta ayaan ku lugeynayay marka waxaan ku arkay jidka quraanjo ama quraanjo guuraysan ku arkay jidka runtii oo wadata alaabteedii iyo waxeedii marka 3 isbuuc oo isku xigta bay guuraysaa ilaa hadda aan arkayaa I don't know xilli ay joojin doonto guuritaanka quraanjo guuraysa 3 isbuuc oo isku xigta bay guuraysaa oo afka waxay ku wadaa geedo caleemo laamo ilmo guri bay maaragtay afka ku wadataa
shalay maxaa la dhihi jiray shalay daraad iyo tii ka horreysayba roob waxaa da'ayay xabajid ah yaa allow araraha iyo awrar daaqeenka midkii Soomaalidu ay oran jirtay kaasaa da'ayay marka waxaan islahaa saaka markaan meeshaan soo maro waxaan islahaa quraanjadii way xaaqantay laakiin weli way shaqaynaysaa baashu awood miiran waa marka roobku imaado gurigeeda gale marka roobku kaco way soo baxeen xitaa maaragtay biyaha xareedda ama daadka gurigeeda ma geli kara sida la sheegay waxay u dhistaa si caalami ah hoos intay u qoday haddana kor ay u soo celiso ee haddana hoos u celisaa macnaha biyaha marka hadday hoos u degaan kor uma soo kori karaan biyaha adii si caalami ah u samaysaa oo ilaahay aas wuxuu siiyey xigmad ay ku qodo dhulka haddii roob kasta da'ana biyo ma soo galayaan gurigeeda yaa maxaa yeelay waa aragtay haddaa shay biyo ku dhex ridid wuxuu rabaa biyaha iskaarika waxa la dhaho biyaha markay galayaan meel ay hawadii ka baxda naqaskii meel ay ka baxaan haddii naqaskii meelu ka baxo uusan jirin oo dhulkiina uusan isku dhagaynin ilaa dhul haddii roob ku doo iskuma dhagayo moogta sidiisu iska ahaana marka biyihii ma geli karaan naqaskii meel ay ka soo baxaan mala naqaska waxay u samaynayaan naqaska qaab oo maaragtay naqaska uusan u soo baxayn u samaynayaan marka biyaha kor iska fuulayaan korka kore iska joogaan biyaha hoos ma u geli karaan waa cajaa'ib weeye yes wili waxaan dhex lugaynayaa kaynta dhexdeeda waa meel loogu talagalay dadka kaliya inay ku lugeeyaan runtii maadaama maanta wax camal aan haynin halkaana lagu soo lugeeyaa